laga shubahaya arkayse laga shabihaya ordayse shalay maahino shini malabkeeda shubayse laga shubahaya arkayse laga shabihaya ordayse shalay maahino sheego meel ku gubaye sheego meel ku gubay sharaftiisa dhowrahaaye haddii leesku sheeg shalay maahino sheego meel ku gubaye sheego meel ku gubaye sharaftiisa dhowrahaaye haddii leesku sheeg shalay maahino haddii leesku sheeg shalay maahino sheeka barale haddii isku sheeg haddii laga sheeg haddii sheeg shalay maahino sheeka barale haddii isku sheeg haddii laga sheeg haddii sheeg shalay maahino Tamam, خلينا أوريها وأجرنا عليه. The idea behind this food provision is to support residents who are in need of food assistance. Yeah? So Ahmed, the chairman of the group, he has is linking some food, as you can see, some rice, chicken. This food provision will be running every Friday and Sunday from 5 p.m. to 8 p.m. So that's every Friday and Sunday from 5 p.m. to 8 p.m. So if you need a food parcel, you can either text the number on there and somebody will deliver the food parcel to you, or you can come and collect it from here. So that's every Friday and Sunday. If you're self-isolating, if you're a vulnerable person, you can't come here, like I said, please text that number or call that number, somebody will deliver a food parcel to you. I also want to add that there are excellent other food provisions in Mossai. This is to support and to commend the good work that's been done in the area. So we wanted to have somewhere, to set up the food provision somewhere that is local, somewhere where some communities can access so they can benefit from this. So I'm going to stop here. Hopefully we will take part of this. I'm going to pass on to Mr. Arnold to say a few words about this. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمان وحن أوجسيني أمان وأنا بلاني community Somali community group Great Manchester أنا وفاق الله يمرعوده وحن بلاني أنتو بيئة وكورونا فيروس كلهم تغلي وحنا كيف ونكقادنا يا كونسلار هذا موساي يو أكل حسنين هي وعادي si anaga dadkii oo Moosay degan yahay oo caawino nin kasta oo u baahan yahayna kuma xirna magaalada meel kasta uu ka degan yahay telefoonka uu soo wici karaa anytime maalinta jimcaha 5 p.m. ilaa 8 p.m. diyaar cunto ay tahay iyo maalinta axadda week kasta uu labadaas cisho oo imaan karaa ku soo dhawaada وحدنا وحن بلاوينا انتدي وقت له ان شاء الله وحن مهاركا وعلنا كونسول مانشستر كونسول يبغوا نعاوي ضد كنا سيان وعاونوا اننا قيب وين ايان كقادنينا حدنا وحا اللي جوجا كونسولار مهدي شريف oo isna qeyb weyn aad iyo aad weyn uu ka qaatay caawintaanka xaafadda maalin kasta mar kasta sanad kasta in
uuna caawiyo wixii dib aan haysano garabkeena uu joogaa aad iyo aad aan ugu mahad celinaynaa iyo dhammaan inta consulaar ah oo moosayde aad iyo aad u mahadsantihiin shukran معاك كتير هل مريتوس بعد بعد معاك جلوس بعد بريس شراب موز iyo chicken ayaa ku jira waa nin kasta oo caawinaad u baahan diyaar ah u nahay ما شاء الله okay aga mid soo qaado aku kailan oo soo arda isla Kiriya kiriya صار على مصطفى ya على مصطفى هو بس ما صار كله Kemarin ada tu di naik ya hari ini. waxaan ku sugannahay xaruntii oo Somali Community Group ee Greater Manchester runtii waxaan meeshan ugu mahad celinaa councilaradii oo Manchester City Manchester Council iyo Somali Community Group shan tobankii beri ugu dambeysay ramadaanka ay siinayeen macnaha dadka masaakiinta ay fiirgareynayeen oo coronaviruskii markuu yimid dadkii maaragtay awoodi waayey inay cuntada aysan haysanin ama cuntada karsan waayey ee guryahooda qaarkood loogu geenayo maantana uu bilaabaday mashruuc kale oo jimco kasta iyo axad kasta oo isu kaashadeen Somali Group iyo councilaradii Manchester inay macnaha cunto u qaybiyaan dadka aan awoodin oo take away meesha naga qaataan iyo dadka qaarkiis oo guryahooda jooga aan awoodin inay soo doontaan in fadhigooda ayagana loogu geeyo marka waxaan leeyahay aad iyo aad u mahadsantihiin groupkaas oo dhan marka haddana waxaan ku wareejinayaa nin Axmed oo isigana CDO4 oo ka tirsan Somali Community Group member buuxaka trustee ku jira marka welcome CDO4 ما صدق عداي wax loo baahnay waxaan u mahad celinaa konsolada xaafada special aan mahad celinaa konsolada mahdi inkastoo saddex konsolada ay joogaan xaafada laakiin ninka muuqda oo hoos qabta mahdi way aad u mahad celinaa waxaan ugu talagalnay barnaamijkan aan hayno iyo cuntadan aan aragto cuntadan diyaarinaa wiigi laba maalmood marka labada maalmood waxaan ugu talagalnay dadka masaakiinta aan awoodin oo lacag haysanin oo in oo cunto oo la siiyo iyo waxaan kaloo ugu talagalay dadka xanuunsan odayaasha iyo qaar oo soo bixi karin gurigooda inaan ugu geeno marka gudoomiye Axmed oo isigana volunteer maqaayadiisa hawshan macnaha ka hay waa mahad celinaa aniga cadaaya iyo dad waxaan reebno taageer ah inkastoo member aan nahay كونسل رمادي هذا ومدعلين وحارجين مور ناس ما إن شاء الله. سؤال مدي ويدي كنا. سببت الله قابلنا يتعيشين كان. ده حلوصنا يدل على العالم يا مساء وحبايب جلو.
oo cudurkan dartiis baa u soo bixinaysiin mase waxaa u bixinaysiin dad iska baahan waxaan bixinaynaa sababta waxay tahay dad baan waddanka horta ma jiro ku jira ceelo wada qaata hadda bulsho uga socoto way shaqeeyaan had shaqa ma dad jirto qaar shaqeeyaa jiro iyo qaar aan shaqada istaagtay aan lacagii benefit iyo waxaasan wili loo bilaabin oo processa marka stock waa lacag ma haystaan dadkaas oo kale oo lacag haysanin qaara waxaa jira food bank oo safka ku jiro oo raashin ay qaataan wili waxaan jeclaan lahaa inaan bilaabno raashin aynin in dadka aan lacag haysanin in la siiyo si gurigooda ugu samaystaan marka tilaabo taas waa mahadsan ka fiican ay siin alaga waxaan u duceynaynaa counselarki oo waxaan soo abaabulin iyo Somali community intaas ay rabnaa aniga waan eega markaa faraas adaysa بسم الله الرحمن الرحيم maanta waxaan ku cadeynaynaa in community magister ay horumar gaareen oo intii coronavirus-ka ahaana ay cuntada qiiminayeen taas oo ay ka qayb qaateen maxaa la yidhahdaa walaalaha oo odayaalka maxaa yidhahda community magister iyo councilorkeena mahdi marka dadka dhibaateysan oo aan heli karin ayaa halkaan cuntada loogu sameeya oo ay ka qayb qaataan walaalaha community Somali group marka waxaan u maleynayaa oo ku dhiirigelinaya inay hawshaan hore usii wadaan iyo waxqabadka ay u qabanayaan community magister siduu injineerka sheegaba anigana waxaan ku raacsanahay in Somali community group Greater Manchester iyo councilka runtii ay u qabteen community Moosay degan wax fiican ay ugu horeeyaan councilor Mahdi iyo gudoomiye Ahmed waxaa wax aad loogu farxawaay marka coronavirus intuu dhacayna soonkii dabeeyadiisana macnaha wax badan ay macnaha inta qaybsi ku jiray haddana waxaan macnaha ay sameeyeen qofkii oo Luis ku socon karana in macnaha take away gacanta looga saaro qofkii aan awoodinna in gurigoodii looga deliver gareeyo waxaan u mahadcelinaynaa ama hambalyeynaa community-ga waxa ay qabteen iyo councilor ciddii soo qaban qaabisayba aad iyo aad u mahadsan yihiin waxaan ka rajaynaynaa waxaan iyo wax ka weyn salaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh